magaalada Bahidar ee ismaamulka amxaaradda ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhacay isku day afgambi kaas oo la doonaya in meesha laga saaro ismaamulkaasi. madaxa xafiiska warbaahinta ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo mid ka mid ah guddiga fulinta ee xisbiga Amhara Democratic Party ayaa u sheegay telefishinka EBC in isku daygaasi afgambi uu ka dhacay magaalada Bahidar kaasoo la rabay in gebi ahaanba meesha laga saaro ismaamulkaasi. afgambigan ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhicisoobay kooxdii soo abaabushay, waxaana xaaladda magaalada Bahidar hadda gacanta ku haya ciidamada qalabka sida ee wadanka Itoobiya oo lagu soo daabulay isla magaaladaasi. mas-uuliyiin ka hadashay afgambigan dhicisoobay ayaan faahfaahin kale ka bixinin cidda ka dambeysay islamarkaana soo abaabushay afgambigaasi. ee dhinaca kale wararka la isla dhex marayo ee lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sheegaya in la dhaawacay madaxweynihii ismaamulka qoomiyadda amxaaradda oo ah tan labaad ee ugu ballaadhan dadyooga wadadega dalka Itoobiya. hase yeeshee ismaamulka qoomiyadda amxaaradda iyo dowladda dhexe Itoobiya ayaan midkoodna ka hadal wararkaasi la isla dhex marayo ee sheegaya in la dhaawacay madaxweynihii deegaanka amxaaradda. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.